السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته قالوا البدن دوني ka joogtaan fiidnimo wanaagsan maalinimo wanaagsan xilli waliba iyo waqti waliba idiin tahay dunida meel walba idin nagala socotaan kula soo dhawaada Crypto Somali TV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابها مالين وناكسن سكسو نقض وناكسن وكذا باديوني دور الاسمارك إن شاء الله بإذن الله كريم معهم نسيفي عن سوس وضع نقض نسكسو بغير نقض هل كم حرمنا أنا كون نسكن إنه لعقت كريبتو كارنسي وبحرس بيتكوين يلعق بدن وأنا سمعنا إنها في إيدي سمين دوران سنضاء صوص وعدا أما إسبدل الجنة halkan hadda waxaa idinkaga muuqda ama aan ku haysanaa waa lacagta bitcoin-ka oo awal trading view-ka aanu noo soo muujin jirin sidan hadda ay inoogu tahay because wax badan baa inoogu soo kordhay maasha allah marka waxaan rajeynaynaa in aan wax badan ay naga soo kordhin doonto aragtida one-month ee bitcoin-ka sidan in awal ay ka duwaneedo hal fiiq oo dheer iska ah insha allah in wax laga qabaa aan kala kulanaan ka rajeynaynaa taas waa qodobka koowaad iyo qodobka labaad waxaan rabnaa aragtideena inaan ku qabno boqolkiiba 80 oo ah aragtida xooga badan ee boqolkiiba boqol dhici karta iyo aragti boqolkiiba 20 oo aragti daciif ah laakiin laga yaabo inay dhacdo haddii dhacdo aanay noqon wax qariib ah labadaas waa ku xisaabi doonaa meelo badan waxaan u baahanay marka inaan koob ka bilowno analyse-keena bitcoin waxyaabihii hore uu soo sameeyey iyo waxyaabahan isleenahay uu sameyn karaa sida hadda aan halkan uga muuqano bitcoin 2011 wuxuu ahaa $2 uu soo dhaqaaqay wuxuu yimid 2013 laba sano kadib wuxuu yimid 225 hoos u soo dhacay oo correction u galay wuxuu yimid 149 sanadku wuxuu ahaa January 2015 January 2015 uu dhaqaaqay wuxuu gaaray ilaa iyo 18,625 sanadka 2017 halkan marka waxay noo muuqataa 11 ilaa iyo 13 inay laba sano tahay kadib uu soo dhacay muddo 2 sano ah hoos okay 13 ilaa 15 sano 2 sano hoos u socday haddana 2 sano kor u socday wuxuu kaloo haddana gaaray ilaa iyo 18 kadib markay sanadku 2018 hoos u soo dhacay 2018 ilaa uu yimid $3,000 hadda marka waxaan ka rajeynaynaa muddada 2 sano soo socota inuu kor aado oo aan dhaqaaqan uu sameeyaba marka waxaan rabnaa inaan analyse kareyno annagoo trailing-keena iyo barnaamijkeena isticmaalayna aan isku dayno bal inaan wax muuqal aan ka fiirfiirno haddaan kor saaray trailing-ka haddana hoos aan saarno trailing-ka marka waxaan haysanaa trailing maasha allah kaaliska arag oo aad u qurxoon waxaan haysanaa 2 taabasho oo kor ah أنا لaba jeer u taabasho kor u soo taabtay hoosna waxaan haysanaa 2 taabasho oo kor ah iyo 2 taabasho hoos waxaan noo dhiman marka taabashadii saddexaad inaan isla fiirino halka iman karto oo ah tan muranka badan iyo dooda badan ay ka taagan tahay iyo waxyaabahan ka rajeynayno si aragno trailing-kan ku jira bitcoin ilaa iyo 2013 ilaa iyo 2020 trailing-kan inuu koob soo noqdo oo ah xilligan wuxuu ku jiraa waxaa la dhihi karaa waa correction koob waa 2 waa 3 وآخر كبحث وحي كتب بيا نوع أيضا وجهه كان لكن هذا واحد يرني ما أنت تحكي له وريك إن حالتنا اليوم وحي عن كرامنا أحرم أمرك هدول الأقدر بيتكوين ورسلنا $100 مال
إنما عادي يعني توتوا وصار عفري سد لبا جهة وضعف هل كان بوستي دبل توب اسمه ضعفي هل كان مركز الله فيريو waxay ayadana meeshan meel laga soo celi karo ayadana ugu dhaafay waxaan ka rajeynaynaa marka bitcoin aragti boqolkiiba 80 asigoo hore usoo sameeyey qaacidadan wuxuu hore usoo sameeyey dhaqaaqan oo kale okay wuu soo dhaqaaqay halkan haddana ka dhaqaaqay wuxuu sameeyey dhaqaaq leeg ayuu sameeyey oo caddeynaya inuu dhaqaaqa ku jiro markana iska jaro hadda marka waxaan rajeynaynaa inuu samayn doono dhaqaaq lamid ah anagoo hoos ka bilaabeynaa waxaan ka rajeynaa marka bitcoin in aan ku aragno hadduu raxmaan baa la yidhaah $400,000 waa aragtida inoo sheegaysa mayoolka aan hiigsanayno muddada 2 sano ee soo socota in oo bitcoin inoo gaaro $400,000 tan waxaa ka keenay halkan oo ah dhaqaaqii hore uu soo sameeyey oo kale inaan ku darasnay marka la fiiriyo suuq markuu dhaqaaq sameeyo correction galo waxaa jira dhaqaaq kale inuu sameeyey waa sida hadda aan haysano suuq uu dhaqaaqay correction galay uu dhaqaaqay correction galay uu dhaqaaqay dhaqaaqa marka correction ku jira hadda waxaan ka rajeynayaa correction inuu ka baxo uu si toos u dhaqaaqo correction kana ما هم وينان طور سلان سلاية هي أكيد ضعيفة عن سلاية وكيران طورها correction هذه هراء ما دام شو دقائق في عمل مشروع ما يستوي هذا هو حسمين طورها دقائق لكن correction كان يكون طورها correction وجهيسن جهاد القرية وكان كسي سودان إلا إنه نوسي قارو أفر بقلوك correction كان يروح المعاونة كوب صوت هابتي وصار نقضي الله وصوت هابت وصار نقضي وحنا يسمى مركز لغة تابشوهز مركز اتحاد أو كبلاقو إلا أو كتغيري آخر تابو وصوت هابت مركز سمر هو بدايحي أركت ذا مركوحي شيء إسلام إن جهاد البيتكوين ينكسو بالمقوكي بس ديتا أي نقطة جهاد باي هدي ويدعضو إنه صور نقض وصوقا ويمال جهادا أي دعضو suuqa halkan laga soo celiyo waxaan ka rajeynaynaa inuu yimaado ilaa ay 13 laakiin waa aragti boqolkiiba 20 ah oo adag tahay inay dhacdo aad u adag tahay laakiin hadday dhacdo wax walba way dhici karaan suuqa naga maamulo iskiisu isku maamulaa iyo wuxuu sameynayo laakiin mar walba anaga waxaan kasii sugeynaa hadduu 3 taabasho hoose soo taabto kii inuu kor aado laakiin si taabashadan uu halkan ku imanayo waxaan filayaa inay aad u adag tahay inana muuqan meel kala suuq wareeg ah oo kasoo kala wareegi karo suuqa ima muuqato jihaan islaam uu kusoo noqon karaa balse haddii ay dhacdo inuu halkaa yimaado kadib ay ka dhacdo waa macquul way dhici karta laakiin aragtideeda waxay tahay wanaa wilayaa oo islaam way dhici karaan bitcoin halkan correction fiican ka galo noqdo ka baxo kadibna $400,000 si nadiif ah oo ku taabto marka rajadeedu waxay tahay 2 sano soo socota in $400,000 aan bitcoin ku aragno hadduu raxmaan ka yiraahdo sidaas oo ah tii aan ka rajeynaynay ama kiribtadii aan ka filaynay inay kor aado iyadana waa daboobi doontaa hadduu ilaahay yiraahdo waa haddaan wax iska bedelin suuqu wuxuu leeyahay structure iyo qaab uu ku socdo qaabkiisa markaad joogto hadda one month-ga halka bil wuxuu noo sheegayaa in qaab wanaagsan uu ku socdo waxaan kaloo fiirinaynaa haddii bitcoin ay ka baxno lacagta la dhalatay ee ethereum ayadu waxay gaartay $4,000 laakiinse hadda waxay mooddaa inay $40,000 ay kasoo dhacday laakiinse soo dhicistaas maaha soo dhicis weyn waxaan filaynaa ayadana boqolkiiba 80 haddii ayna wax iska bedelin ethereum in correction ay gasho ay train line-kan ay ku noqoto train line-kan markay ku noqoto kadibna ay hore usii dhaqaaqdo aan ku aragno 30,000 31,000 25,000 ay gasan ku aragno boqolkiiba 80 haddii ay dhici weyso aragtidaas ah
in boqolkiiba 80 bitcoin uu soo noqdo ayadana waxaan ka filaynaa inay soo noqoto ay dhulka imaato hadduu 3 tago ayada inaan boqol ku aragno oo ah wax aad iyo aad u adag laakiinse dhici kara boqolkiiba 20 suuqu mar walba wax fiirinayno waana labada jiha ka fiirinaa laakiinse labada jiha markaan fiirinayno dhinacna waa inaan ugu qasarnaa dhinaca kale haddiiba ay dhacdo waxaan fiirinaynaa ayadana in ay adag tahay intaa kadib aan fiirino BNB ayadana waxyaabahay samaynayso iyo halkaan isleenahay way gaari doontaa BNB awal waxay soo samaysatay dhaqaaqaad u fiican waxay ka timid meel hoose haddana waxay joogtaa meel dhexe ayadana waxaan rajaynaynaa inay soo samaysato correction aad u badan ay ka baxday correction la midana ay samaysato ayadana ay dhaqaaqdo way up ilaa ayaan ku aragno $10,000 iyo $12,000 aan ku aragno waqtiyada soo socda suuqan haddii wax walba ay dhacaan wax walba oo macquul correctionkana wuxuu kala asteyn doonaa waqtiyada soo socda waxyaabaha dhici kara marka BNB in labada sano ay soo socotaan ayadana ku aragno 20,000 aad iyo aad macquul tahay intaa markaan kaga soo gudbo waxaan fiirinaynaa lacagaha macquulka ah ee aan goyn karno yaryar ee maanta meelaha hoose maraya waxyaabaha ay soo wadaan iyo halkaan isleena waa tegi karaan inagoo fiirinayno qiyaas ahaanteena waxyaabahay hore usoo sameeyey iyo waxaan isleena hadda way sii samayn doonaan waxaan fiirinaynaa lacagtan oo ah ribal hore waxay u samaysay dhaqaaq way soo dhacday muddo 2 sano hoos kusoo socotay hadda way dhaqaaqday dhaqaaqaas waxay ku jirtaa meel dhexe all-time high-geeda may gaarin haddii all-time high-geeda ay gaarto oo bitcoin oo kor usii dhaqaaqo ayadana waxaan ka rajeeyaa inaan sanadada soo socono aan ku aragno eriyada $60 hadduu ilaahay yiraa laakiinse waxay u baahan tahay waa sabir iyo dulqaad iyo kandalkan ay ka soo baxdo haddii ay soo baxdo ayba soo dhaaftaba kandalkan oo suuqaada meesha ay joogto ah correctionkana ay ah mid si fiican ay u samaysatay oo sheegaya in ka bixi rabto haddii ay soo dhaafto all-time high-geeda jabsato waxaan ka rajeeynaa inaan ayadana ku aragno sanadada soo socda eriyada $60 aanu galno HBR waa ayadoo lacag aad iyo aad mustaqbal fiican u leh oo dhaqaaqyo aad iyo aad xukuumaha soo samaysatay ayadana eriyada aan ka filayno waxay tahay eriyada $2 ama $1 oo ah eriyay hadda ka hor samaysatay $3 waxay soo samaysatay correction way dhaqaaqday correction ku jirtaa waxaa soo qaatay correctionkii hore ay soo samaysatay correction la ega ayaa u saadaaliyey inay halkan ka geli doonto kadibna ay sii dhaafi doonto marka ayadana waxaan isleenahay insha allah bilaakiin waxaan ku arki doonaa eriyada $3 iyo aagaas aan kasii gudubno lacagaan isleeyahay iyadana dhaqaaq aad iyo aad macquula weliba si degdeg ay samayn doontaa jirta lacagtaas iyadana waxa weeyaan lacagta la dhahay TLM lacagta TLM aliyonka iyadana waxay leedahay dhaqaaqyo aad iyo aad macquula structure aad u badan ay samaysay waxay kaloo samaysay soo noqosho hoose oo ah inay soo taabatay double bottom 2 jeera descending channel ay ku timid si janjeer ay ku timid marka hadda waxaan ka fila jeedinaa in si qurux badan ay uga baxdo eriyadaas $1 aan dhawaa ku aragno iyadoo hadda maraysa 20 centi $1 ay ku aragno kadibna ay ka gudubto ilaa ay eriyada $60 aan ku arki doono waqtiyada soo socda lacagahan isleenahay waxay idin samayn doonaan isha waa waxaan gadan karo laakiinse samayn doona faa'iidada aanu galo lacagta mar walba la hadalhaye hor oo ah lacaga aad iyo aad ayada u fiican dhaqdhaqaaqeedu aad u fiican yahay ayadana waxaan ka filaynaa in ay samaysato dhaqaaqyo fiican sanadada soo socda dhaqaaqyada ay samaynaysaa maaha meel kale kamida keenin waxaan ka keenay structurekii hore ayadu soo samaysatay inaan soo qaada hadda waxay soo samaysay corruption
dhaqaaq waxay hadda ku jirtaa corruption-kana waxaan rajeynaynaa inay ku noqon doonto oo ay soo taabato hoos kadib ay kor taabato deetana hoos imaato kadib ay ka baxdo markii ay ka baxdo kadib waxaan ka rajeynaynaa ilaa iyo inay ay tagto eriyada $2 ah Abdulraxmaan Biiraan eriyada $1 eriyada $2 ah inaan ku aragnaa ayadana ka rajeynaynaa hadduu ala qadaro waa sidaan isleedahay aan ku galo lacagta uban oo ayada lacag mustaqbal fiican leh meel fiicanna kasoo dhaqaaqday dhaqdhaqaaqeedu aad iyo aad u sarreeya lacagtan iyadana sidaas leeg waxay ku jirtaa corruptionka haddii ay ka baxdo hadda ayadoo maraysa waxaan rajeynaynaa muddada soo socota 2 sano insha allah inaan ku aragno $10 ayadoo maraysa annagoo soo qaadanay structurkii hore ay soo samaysay midleeg aan halkaan ku saarnay haddii ka baxdo corruptionka waxaan rajeynaynaa $10 aagga inaan ku aragno anu galno lacagta la yidhaah BTT lacagta BTT oo ayadana lacag dhaqdhaqaaqeedu aad iyo aad u sarreeyo joogtana hadda siirooyo badan waxaa ayada rajeynaynaa in aan ku aragno sanadka soo socda eriyada $1 ama $1 sababtoo ah waxaan ku jirtaa hadda corruption waxay samaysa corruption dhaqaaq corruptionkan haddii ay ka baxdo 2 jeer korinta soo taabato hoos ku noqoto toban ka helin kadib waxaan ka rajeynaynaa inay soo taaban doonto eriyada $1 deenti waa ayadana ah lacag mustaqbal fiican leh aad iyo aad u wanaagsan ayadana waxaan ka rajeynaynaa inaan ku aragno eriyada $1 inay noo gaari doonto ama $2 sababtoo ah waxay soo samaysa corruption way dhaqaaqday dhaqaaq aad u weyn corruption ay samaysatay corruptionka waxaan rajeynaynaa taabashaana oo ka haysan kow inay kortagto haddana laga soo taabato 2 deetana ay si sharaf looga baxdo aan $2 ku aragno feed chain oo ayadana lacag mustaqbal fiican leh aadna loo amaanay waxay hore u soo samaysay structure AW foundation AW soo samaysatay haddana waxaan ka rajeynaynaa corruption inay ku jirto ee kor iyo hoos soo taaban doonto markaa kadibna aan ku arki doono sanadada soo socda ama 2 sano soo socota ayadoo maraysa $27 waxaa kaloo jira lacag u baahan inaan cilmi ka barano oo la yiraahdo GTX lacagta GTX waxaan filayaa inaan ku qaaday lacagta isheeg ayuu lacagtan waxaan fiiriyey maalintii iinta ahayd maalintii ka horreysay waxay maraysay $8 waa cilmi cusub laakiin saaxaada u ahayn aan arkaynay GT4 ama GTX waxay ka timid meel hoose waxay samaysay wax aan hore u arag laakiin si aan ku maqlay Wikipedia barnaamijka kala ma garan karo laakiinse lacagtan waxay ahayd lacagtii intii aan ku xaadirsanaa ama aan joogay cryptocurrency ee ula yaabman waxay maraysay $8 kana raasay samaysatay waxay ka dhaqaaqday $8 waxay mar keliya tagtay 57,186 waxay samaysay 40 waxay samaysay faa'iido ah faa'iido waxay samaysay Japan ka badan waxay lahayd way soo noqotay second 3 maalin kadib waxay samaysay tobankii bishii May 10 May hadda wuxuu qaatay inay kor ku aado 10 May bilowday waxay halkan ka dalban karaysaa ay ku soo noqotay 17 May subaalo saacado daqiiqado gudaheed waxay timid $3 iyadoo gaartay $57,000
وعلمي الكوريين حاضر واحد كربت إن هالمر استثماري كرتو هالمر واحد إيه كرتو هالمر هوس الصنعة كرتو إن شاء الله بالتأكيد هالرجينا إن أما قاوم علمي إنه كرتو أخيرا أنا كنت لي رشيبة وأنسلا ياسكنا وحوها كوين نخاف بالي يسميه لكن هذا أنا لا يمسك إنه قرار صنعة كوين وحوكي مع الهوسة وعلى وصول الربعين مركل من الهودة دخل إن عالي المسلمين أدرى وحد على نصيب ضرر وأدرى هالمر خصوصا ما دام سوقي أمر وخصوص صحيح ما دام سوقي أمر وخصوص صحيح marka waxaan arkaynaa suuq mar haddii uu soo eego in coinanka ama bitcoin ay hoos soo fiiriso in coinan badan ayagana si hoose ugu soo dhacayaan coinka waxaan ka rajeeyaynaa sidan inuu noqdo coinka korriimada badan umara horeeya sababta wuxuu sameeyey dhaqaaqka waqtigii uu soo dhacay waxaan ka rajeeynaa inuu tago uu soo dhaco kadib uu ka baxo marka wixii ka dambeeya waxaan ka filaynaa inuu sameeyo dhaqaaq lamida kii hore uu soo sameeyey oo ah aan soo jarana kan waxaan ka filaynaa inuu saas dhaho uu halkaa tago kadibna uu ka sii dhaqaaqo uu gaaro meelo fiican meelo aad u fiican coinkan shiba mislanaha meel fiican u tegi doonaa wuxuu la ekaan doonaa dhaqaaqii hore soo jara waxaa soo dhow waqtigan shiiba ku arki lahayd afarta siiro kasoo gudbi lahaa shanta siiro kasoo gudbi lahaa inoo soo dhow marka halkaa waxay noogu ekaan doonaa analysekii suuqa insha allah waxaan isla joognaa wixii soo kordhana waa isla fiirin doonaa haddii ilaahay yiraaha wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته. وحسالنا إن شاء الله بقال كان هوس ساحيا لوغ ريبي كاريسا وانا سايبكين سيد كود دهيو كريبتو هاوت كيدونا ما ونفسنا لوغ فغادو انت مقال كان ميد لميدا ان كل ميدونو كريبتو هاوت كيدا يان لوغ فغان فرصدهانه يا لطيع سيداس يا دبادينو لو كرتيو ان امان الله